maadeen deeq bixiyaasha caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee dawliga ah ee caalamka ee gargaarka bixiya iyo xukuumadda Soomaaliland oo dhinaca ayaa maanta ka furmay hotelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. shirkan oo la sheegay inuu socon doono muddo 3 maalmood ayaa ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen oo saxaafadda gabi ahaanba laga horjoogsaday. وفود شركة كسوق قريب كليسا وقاركود أي إسلام معناتها كسوق دجين قرن كالطيارها أي عقال international airport مجرد هرقيسا أي وحى أي كسعودين حرمها قرامات بدبي فريدو ده مجالين كنيويورك تينيفا إيو نيروبي إن كستوى الحكومة وشركة أوديتي إن صحافته أي جودها ugasho ayaa hadana ilo ku dhowdhow shirkaasu waxay tibaaxayaan in ay xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga ay ka wada hadlayaan mashaariicdii horumarineed ee loo qoondeeyay Soomaaliland iyo la xisaabtan la sheegay in xukuumaddu la yeelanayso mas'uuliyiinta hay'adaha. amaanka goobta shirka uu ka socdo ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo halkaasi ay joogeen ciidamo tiro badan oo kuwa amaanka iyo waliba qaybaha amniga u qaabilsan hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan UNDP oo saraakiishooda sarsare ay halkaasi ka howlgalayeen. sida laga warqabo banka adduunka iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah ayaa Soomaaliland u qoondeeyay dhaqaale ka badan 500 milyan oo dollar oo loogu talagalay mashaariicda dhinaca horumarinta iyadoo qaybo badan oo lacagtaasi ka mid ahina ay mar horeba soo gaareen Soomaaliland balse aanay jirin wax muuqda oo la taaban karo oo ilaa imika lacagtaasi lagu qabtay. Axmed Xuseen Warsame, Universal TV, Hargeysa.